madaxweynaha dawladda Jubbaland madaxweyne Axmed Maxamed Islaan waftiga ballaarnaa uu hogaaminayay waxaan ku soo dhaweynaynaa xukuumaddii iyo baarlamaankii uu hogaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoonka baarlamaanka gudoomiyaha iyo labadiisa gudoomiye ku xigeen wasiiradii iyo xildhibaanadii saraakiishii iyo bulshada inteeda kala gadisnayd ilaahay nabad sugan keenay waxaan idin leenahay madaxweyne soo dhawaada ku soo dhawaada dalkiina oo ka tagteen oo nabad ugu tagteen nabadna ugu timaadeen waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ku soo dhaweynaynaa gacmo furan kalsooni iyo annagoo sugayno wixii aad muxuu ahaa noogu maqnaydeen ee wixii la dhihi jiray 2016 iyo qaybsigii maxaa la dhihi jiray awoodaha iyo baarlamaanka sare iyo baarlamaanka hoose iyo dadka reer Jubbaland meel kastoo joogaan dhagtay u dhigayeen marka safar noo aadana wararaan ku qanacno yaad noo keenay jirtay wararkii reer Jubbaland ka soo hayaan soo dhawaada adiga waftigaada assalaamu calaykum hadda waxay timid markaa inaan mid Soomaaliyeed isugu tagno Soomaali ku wada hadasho aan cid ku dhex jirin aan loo kala dabqaadaynin aan la lahayn international community yaa ka jooga iyo hadda beeshii la xadana waa lagu qabsanay yaa kala safaarada joogay midna aan la lahayn intaan ka wada hadalay waliba ma ahayn wax jilicsan in laga wada hadlayay mawaaqifta qaarkood way adkaayeen laakiin isu tanaasul iyo xaq ahaan waxa la muujiyay mas'uuliyad waxaad moodaa in mas'uuliyadda la soo dareemayo shucuur mas'uuliyad inay soo maalinta ka dambaysa ay soo jirayso waa guul taariikhi in anagu iyadoo cid lagu dhex jirin aan heshiinaa waxaan u arkaa inay tahay guul taariikhi taas saasay ku dhamaatay laakiin tasaa'ulaad badan baa jira oo baarlamaanka xagee la geeyay oo aan kursigayga xagee u jira isdaba orod gaar ahaan hadda nimanka xildhibaanada hadda baarlamaanka ku jira wareer badan baa ku jira oo kuraasyada waxaad moodaa kuraasyada tii badan inuu ku jiro laakiin waxaa lagu heshiiyey deegaan walba intii wax ku soo wada dhisatay in kuraastooda lagu celiyo lagu soo kala xulo xagga ay la tagaan waxa laakiin la xulayaa waa saado arteen communique-ga waa baarlamaanka aqalka hoose aqalka sarana wuxuu yaalaa dawlad goboleedyada waa kii isteediyada matala murti waxaan leeyahay waa guul taariikhi oo shacabka Soomaaliyeed soo hoyatay oo macnuhu ahaa inay iyagu tashadaan oo wax isla gaari karaan waan u mahad celinayaa waan u hambalyeynaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed waxaan leeyahay intaas oo ugala sii dhawaataan baa idin hal istaab oo kale arrimaha adag oo kale markay idin la soo gudboonaadaan aan la idin kala dabqaadin idinku aad heshiiska gashaan aad baan arrintaas waxaa kaloo shalay kala qayb qaadanay 12 Abriil oo ahayd 56 guuradii sanad guuradii xoogga dalka Soomaaliyeed baa 60kii xilligii la aasaasay Abriil ragii waqtigaa joogay in badan wax yar baa hadda ka nool laakiin saraakiil iyo rag badan oo ciidankooda da'aba hadda way ku jiraan waqtigaas ahay iyada lafteedu waxay ahayd waxaan soo xusuusanay Oktoobaradii la mari jiray iyo qaabkii iyo yani nooc xusuusa waa dadkii soo arki jiray walaan dhalinyarada neerka idinku